waxa baraha bulshada ee qaar ahaan barta TikTok qabsaday dhalinyaro Soomaaliyeed gaar ahaan reer Burco qaar kamid waa reer Burco soo kale qaarna waxay ka soo jeedaan soo kale Muqdisho iyo soo kale Hargeysa hadaba wiilkan reer Burco ayaa sameeyay in uu diinta ka baxo isagoo kala dhalinyaro kale oo runtii hore uga baxsana laakiinse barta TikTok ayuu ka canhaa soo kale wuxuu ku soo gudbin jiray muuqaal runtii aad u xasaasiya oo runtii isagoo kaga hadlaya waxyaalaha kaga soo qabsaday inuu diintan ka baxo hadaba saaxiibayaal ninkan iyo qisadiisa dhabta iyo sidoo kale family-giisaba ayaa nila wadaagi doonaa daawadayaal ee ku soo dhawaada marka hore channel-keena xogbeynta warka subscribe saar like-na saar muuqaalkan si gaaro dadweynaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waad ku mahadsantahay jaanqaadkaaga hadaba sidoo kale muuqaalkan aan kaga hadlaynay ninkani wuxuu ku barbaaray gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco isagoo sheegay mar uu live kaga warramay in uu deganaa xaafadaha Jarmalka hadaba sidoo kale ninkani wuxuu tagay wadanka Jarmalka gaar ahaan gobol loo yaqaan Frankfurt soo kale halkaasna wuxuu kaga baxay diinta Islaamka kadib markii uu ku biiray koox Soomaaliyeed ama dhalinyaro Soomaaliyeed oo halkaas Jarmalka joogta oo caabida diinta loo yaqaan Jesus ama dadka Kristanka soo kale waan ognahay in dadkan Kristanka ay caabudaan diinta Nabi Ciise soo kale iyagoo sheeganaya ama sanadintii taagtaan yiraahdo waa Nabi Ciise saas darteedna ay u caabudaan qofkaas hadaba sidoo kale diintan oo lagu magacaabo Jesuska ama Kristanka ayuu wiilkan haystaa soo sameeyay dhalinyaro kalena soo kale u furay aaladda TikTok si dad kale oo Soomaaliyeed ay u soo jiitaan kadibna ay diinta ay ka warfayaan oo ay ka saaraan hadaba wiilkan markasta habeen kasta live ayuu soo galaa soo halkaas dhalinyarada Soomaaliyeed ay dadka badan ay caayaan maadaama dhalinyarada Soomaaliyeed ay 99% ay yihiin dad muslima ma oran karna 100% waa muslim maadaama ay dad badan oo Kristama ay ku soo biireen dhalinyarta hadaba dadka qurbaha jooga qof kasta uu garanaya inuu diintiisa haysto iyo qofka diinta aan haysanba soo kale hadaba waxa jira dhalinyaro kale oo isagana lagu magacaabo mid kale oo lagu magacaabo Akram Muha isaguna soo kale wuxuu ka tagay magaalada Hargeysa isagoo halkaasna tagay wadanka Jarmalka saas darteed halkaas diintiisa kaga baxay isagoo habeen walba isaguna live ka soo gala isagoo cunaya cunto ka xaraan oo muslimiinta oo la yaqaan cunto doofaar ama madax doofaar isagoo runtii dadka ay cunayaan ay soo halkaas live ka soo galaan soo karana halkaas xiriya hameen ay ka buuqaan oo runtii ay ka caayaan diintii nabiga hadaba sidoo kale hadaba dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa nila wadaagna muuqaalkan ee baraha bulshada qayb ahaan baraha TikTok ay ku faafiyaan iyagoo ka warramaya bal waxay ka sheekeynayaan iyo diintan ay haystaan ee Kristanka bal waxay ka faa'iidaan maadaama diinta Kristanka markay ka ay galeen lagu siiyo lacag si ay u soo jarhabaabiyaan dhalinyaro kale oo Soomaaliyeed soo kale waa nasiib darro aad weyn in dhalinyaro Soomaaliyeed ay diinta Islaamka ka saarayaan dhalinyartooda maadaama iyaga ay lacag ku qaataan كون حتى القصة يقال العقب حبكم ما قادنا لكن آخرته أيام بيسجنيان وبالله التوفيق صاحب